galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin isniina oo bisha Febraayo sanadka 2021 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyadoo maanta ay dhammaanayso muddaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisii dhammaaday, waqtigiisii inuu dhammaaday, ha dhammaada ee dib ma laha, haddii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato. marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyey xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cakiran. codkaasi aad maqasheenna waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aan idinkaga hayno waraysi gaar ah. waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falanqeyn dhinaca sharciga ah oo ku saabsan awoodda xil sharciyeedka madaxweynaha xilligan kala guurka. danta dastuurigii waxay qasbaysaa marka in madaxweyne Farmaajo uu meesha sii joogo, baarlamaanku sii joogo, laakiin ay si dhaqsa uga howlgalaan jadwal siyaasadeed oo doorashada lagu qabto. sidoo kale ay xukuumadda madaxweyne Farmaajo ka waantowdo inay go'aano waaweyn qaadato muddadan hadda lagu jiro kala guurka. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya Jacfar Kukay. dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay degdeg u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay hogaamiyayaasha Soomaalida in ay dhinac iska dhigaan wixii baadigooba ee ku saabsan faa'iido siyaasadeed ee khaasa, taas beddelkeedana ay ka shaqeeyaan waxa ay ku jirto danta dadka Soomaalida. waxay sheegtay safaaraddu in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegay uu dhaliyey horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadidda horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guulaystay wejiga koowaad ee deyn cafinta, iyo in si wax ku oola wax looga qabto amni darrida cuntada iyo musiibooyinka halista gelinaya Soomaali badan. dhinaca kale saaxiibada beesha caalamka ayaa iyaguna sidaasoo kale ugu baaqay madaxda Soomaalida inay sii wadaan wadahadalada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyin iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. baaqyadan ayaa imanaya iyadoo maanta ay ku eg tahay muddaxileedka 4 sano ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, waxaana golaha midowda musharaxiintu ay sheegeen inaanay haatan wixii ka dambeeya madaxweyne u aqoonsanayn Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli wax hadala ka soo saarin baaqyadan beesha caalamka iyo hadalka golaha musharaxiinta. toddobaadkii hore dabayaaqadiisii ayay ahayd markii magaalada Dhuusamareeb uu ku burburay wadahadalkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee la doonayay in lagu xalliyo ismariwaaga doorashada. waxaa maanta magaalada Qaahire ee dalka Masar ka bilowday kulanka wadahadalka qaran ee Falastiiniyiinta kaasoo ay ka qaybgalayaan ilaa 14 urur oo ay ugu horeeyaan Xamaas iyo PLO. wadahadalladan ayaa markii ugu horeysay muddo 15 sano ah lagu doonayaa in lagu qabanqaabiyo doorashooyin guud oo dhinaca baarlamaanka iyo madaxtooyada ah sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Masar. xarakada Xamaas ayaa si aqlabiyada ugu guulaysatay doorashooyinkii dhinaca baarlamanka ahaa ee u dambeeyey ee qabsoomay sanadkii 2006. hase yeeshee dhaqdhaqaaqa Fatax PLO ayaa diiday inuu aqoonsado guusha Xamaas. taasina waxa ay keentay in iska hor imaadyo uu dhiig badani ku daatay ay ka dhex dhacaan labadan urur, isla markaana Falastiiniyiintu ay waajahaan kala qaybsanaan siyaasadeed oo ilaa maanta taagan.
kala qaybsanaanta ayaa horseeday in dhulka reer falastiin uu yeesho laba maamul oo kala duwan. maxamuud cabbaas oo hogaaminaya maamulka falastiin waxa uu ka talinayay 15 sano daanta galbeed oo ay ku nool yihiin dad gaaraya ku dhowaad 3 milyan oo ruux. ururka xamaasna waxa uu maamulayay marinka Gaza ee goodoonka ku jira, halkaasoo ay ku nool yihiin qiyaastii 2 milyan oo ruux. wadahadalkan ayaa ku soo aadaya kulan degdega oo ay wasiirada arrimaha dibadda ururka jaamacadda carabtu ka leeyihiin arrimaha falastiin. ilo dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay in kulanka jaamacaddu uu mar kale isdul taagi doono sida lama huraanka ay u tahay in Falastiin iyo Israa'iil ay yeeshaan 2 dowladood oo kala madax bannaan. dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay inay hakinayso bilowga tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca kadib markii daraasad la sameeyey ay muujisay inuu ku guuldaraystay ka hortagga kiisaska fudfudud iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee fayraska laga helay dalkaasi. wadankan oo ah kan haraatida ugu daran uu ku dhuftay covid qaaradda Afrika ayaa lagu waday inuu bilaabo ololaha tallaalkan maalmaha soo socda, iyadoo la qorsheynayay in 1 milyan oo ruux la gaarsiiyo tallaalkan ay soo saareen AstraZeneca iyo Oxford. go-aankan lagu hakiyey ololaha qaadashada tallaalka ayaa tilmaan u ah dib u dhac la taaban karo oo dhinaca la dagaalanka xanuunka oo uu dalkaasi waajahayo, laakiin saraakiisha ayaa sheegaya in tallaal ay dhinacyo kale soo saareen la filayo inuu dhowaan dalkaasi gaaro, ololuhuna uu hore u socdo. wasiirka caafimaadka ah wadankaasi koonfur afrika Samueli Mkhise ayaa u sheegay suxufiyiinta in joojinta tallaalka AstraZeneca uu yahay mid ku meel gaara ilaa iyo inta laga xalinayo daldaloolada laga dareemay. jaamacadda Witwatersrand ee ku taalla magaalada Johannesburg oo iyadu tijaabisay falgalka tallaalkan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaalka AstraZeneca uu qofka si aan xoog badnayn uga difaacayo noocyada fudud iyo kuwa dhexdhexaadka ee COVID-19 marka laga hadlayo fayraska laga helay wadankaasi koonfur Afrika. laakiin qoraal ay maanta faafisay AstraZeneca ayay ku sheegtay in 2,000 oo ruux oo tallaalkeeda qaatay aanu midkoodna xanuunku si daran u haleelin. mahadsanid Jacfar Kuukaay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. maanta oo ay tahay taariikhda 8 bisha Febraayo waxaa ku eg xilli madaxeedkii madaxweynaha waqtigan Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. golaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xalay aysan u aqoonsaneen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya laga bilaabo bisha Febraayo 8 ilaa iyo haatan jawaab degdeg ah kama soo bixin dhinaca xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. toddobaadkan waxaa madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan doorashada. haddaba warbixintan soo socota waxa aan ku eegaynaa qiimeynta muddadii uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. 4 sano ka hor maanta oo kale bishii February sanadkii 2017 Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya, waxaana codeynta doorashada ka qayb galay marka laga soo tago hal warqad oo baaqatay 327 xildhibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare. wareegga labaad ee doorashada oo uu helay 184 cod ayuu ku hantay in Villa Soomaaliya uu hogaamiyo. madaxweyne Farmaajo oo isla goobtaasi lagu dhaariyay ayaa libintiisa ku macneeyay mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka, isagoo xusay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa gacanna siin doono dadka danyarta ah. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan iskuulka ay keenay. waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbeddeldoonka ah, kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwaan codkoodii isiinin. maanta xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan. guushaan waa bilaawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawinno. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaheena qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smuuth ah
ku wareejiyey xilka. Madaxweyne waa mahadsan tahay, allah ku xafido Soomaaliya, allah xafido. guusha madaxweyne Farmaajo ayaa noqotay mid si aad ay u soo dhaweeyaan badi shacabka Soomaaliyeed. haddaba 4 sano kadib maxaa u qabsoomay dowladda, maxayse ka gaabisay? waa kan Cabdulaahi Maxamed Aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo sheegaya in muddadii uu madaxweynuhu xafiiska joogay ay wax badan u qabsoomeen. madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markuu doorashada soo galayay inuu wax ka qaban doono arrimaha amniga, 2 arrimaha dhaqaalaha, 3 arrimaha cadaaladda iyo dhinaca xuquuqda ciidamada oo aad ugu dheeraaday waqtiga ay leeyahay, iyo musuqmaasuqa inuu la dagaalami doono, iyo habdhaqanka siyaasadeed oo aad ugu racan, dhismaha ciidamada oo ciidamo dhab ah oo Soomaaliya ay leedahay lagu xisaabtami karo uu dhisi doono, bulshada ama shaqaalaha rayidka ah mushaaraadkooda oo runtii aad u dhib badan uu ka taagnaa inay si joogta u heli doonaan, dibna loo shaandhayn doono, iyo runtii xiriirka arrimaha dibadda oo iyaduna markaas uu arkay inay muhiim tahay in dalkani xiriirkiisa dibadda la xoojiyo. arrimahaas aan soo tilmaamo oo dhan wax weyn buu ka qabtay runtii markii mid loo dul istaago. haddii aad u fiiriso xiriirka dibadda, xiriirkeena dibadda waayihii dambe wadamadan westernka weliba ha u badnaadaan, aad baa loo xoojiyey. dhinaca dhaqaalaha, shaqaalaha rayidka mushaarkoodii dib u habeen baa loo sameeyey, nidaam oo digital ah oo qof walba uu account leeyahay ayaa loo sameeyey, qofka mushaarkiisa bilbilba 30keeda ugu dhaco. dhismaha ciidamada runtii sidaan ka warqabno cid walba ogtahay ciidamadan waa la xoojiyey, xagga qalabaynta iyo xagga tababarka ciidan iyo xagga mushaaraadkoodaba runtii korna waa loo qaaday, mushaarkoodii waa la kordhiyey. dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, marka musuqmaasuqa lala dagaalamay arrintaas dad badan baa lagu xirxiray, dad badan baa xabsi u aaday. guud ahaan markaad fiiriso runtii qodobadii uu madaxweynuhu musharaxnimadiisii kusoo galay, doorashada kusoo galay, intooda badan wax weyn baa laga qabtay. Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa aaminsan inayan waxba ka hirgelin ballanqaadyadii madaxweynuhu uu jeediyey xilligii ololaha doorashada iyo qodobadii ka soo baxay shirkii qorshe howleedka amniga ee bishii May 2017 lagu saxiixay magaalada London. madaxweyne Farmaajo wuxuu la yimaada marka horeysay ama markor uu siyaasadda ku soo galay khudbo oo aad u macaaneed oo uu 33 shay dadka u ballan qaaday inuu jidadka furi doono, inuu qofkii al-shabaab soo sheegay lacag 100,000 oo siin doono, guriga ay dumiyaan inuu dhisi doono, waxyaabaha oo political campaign ah oo baarlamaanka ka horjeediyay. taasi waa taasa. waxaa kaloo jirta laakiin markii asiga la doortay ka bacdi waa tii la qabtay shirkii Soomaalida loo qabtay London loogu qabtay, iyo dukumiintina uu ka soo baxay la dhaho National Security Architecture ama qorshe howleedka amniga qaranka oo lagu soo saxiixay London 17 May 2017. dukumiintigaas ayaa wuxuu sheegayay madaxweyne Farmaajo waxa looga baahnay, waxaana ugu waaweynaa 5 arrimood. arrimahaas waxaa ugu horeeyay oo madaxweyne Farmaajo looga baahnaa inuu qabto oo ajenda qaran ah, inuu dastuurka dhammaystiro, 18 oo ciidanka militariga Soomaaliya in la qoro oo la qalabeeyo oo ciidan qaran ah. arrinka koobaad oo ugu muhiimsan oo ah mataqaanaa dastuurka dalka oo heshiis dadweyne ah waa sidiisii waxba kamuuna qaban. ciidamadii qaranka ee la dhahay 18,000 in la dhiso oo gobol kasta laga dhiso 3,000 oo askari, haba yaraatee wax laga dhisa ma jiraan. waxaa kaleeto ciidana muhiima xoojintii iyo mataqaanaa federaaliintii iyo Soomaaliya inay noqoto wadan federaalne. madaxweyne Farmaajo inuu wax dhisa iska dhaafo kuwa dhisnay ayuuba dumiyey. waxaa ku soo haray arrinkii Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii qof inuu waxba ka qaban waa la ogyahay. gabagabadii arrinkii ahay inuu dalka ka qabto doorasho qof iyo cod ah, taas kama hadlaynay. maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweyne Farmaajo inuu qaba waayey doorasho dadban, inuu qaba waayey. dhanka amniga, dowladda ayaa inta badan isgoysyada Muqdisho ka samaysay baro kontarool oo ay ciidamadu ku baaraan gawaarida, waxayna dowladdu fashilisay tiro qaraxyo ah sida uu ku doodayo Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada Muqdisho. 4 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne Farmaajo uu madaxweynaha ahaa, dowladda Soomaaliya waxay amniga ka qabatay dadaal weyn oo runtii aan la yareysan karin. dhammaanba isgoysyada magaalada Xamar 54 isgoys waxaa jooga ciidamo amniga. waxaan isleeyahay waa dowladdii ugu horeysay oo ilaa heerka amniga la gaadha. way dhici karaan mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 inay wax dhaceen, laakiin waxaa ka sii weyn oo ka muhiimsan inta qarax ama dhibaato ama amni
darro oo ah mid dadka dagaalamaya ka socda ama dadyow kale inta la fashiliyey ama laga hortegay baa ka fara badan. marka anigu waxaan aaminsanahay 4 sane inuu amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale sida koonfur galbeed ama hirshabelle oo kaleeto galmudug oo kaleeto in aad si weyn wax looga qabtaan aaminsanahay. runtii in la yareystana maaha, waxaa garab socday dhismaha ciidamada qalabka sida oo si firfircoon u dhismahayay. marka isku soo duduubo 4 sane ee madaxweynaha hadda xilkiisu sii dhamaanayo xukunka joogay, waxaan isleeyahay waa amniga wax badan baa laga qabtay. wuxuu aad uga duwan yahay madaxweynayaashii asiga ka horreeyey sidii amniga u qaabili jireen, aad buu uga duwan yahay. marka waxaan isleeyahay arrinta ayada waxay mudan tahay in dowladda dhexe iyo hogaanka hadeer jire farmaajo in lagu ammaano 100% inay mudan tahay loo baahaya, iyadoo la isbarbar dhigayo shalay iyo maanta. marka laga yimaado taasi, al-shabaab oo dowladda dagaal kala soo horjeeda ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan goobaha ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sida uu tilmaamaya Xuseen Maxamed Gaagaale jirta inaan loo kala socon karin muqdisho iyo gobolada ku xeeran. runtii marka la fiiriyo xagga amniga magaalada muqdisho gudaheeda gobolada ku xareeraysan oo amniga muqdisho ku xiran tahay sida shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, sida uu ahaa markii uu xilka qabtay iyo siduu hadda yahay isma leh. waayo markii hore dadka xildhibaanada iyo kulli baabuuray ku aadi jireen meesha la yiraahdo Jowhar iyo Baydhabo kale waa lagu aadayay, Marko kale waa lagu aadayay, laakiin hadda Afgooy xitaa lama aado iyo Balcad. marka amnigu waxaad moodaa inuu 90% soo gaabtay. qaraxyo badan oo hadda kii ugu dambeeyay oo General Galaal ku dhalanay isdaba jooga waa jireen oo wax hadda la dhihi karo 100% waa lagu guulaysto. qaraxina waa la joojiyay, isdilkii kalena waa la joojiyay, ma jirto. dadka la beegsanayo waa badan yihiin, waliba waxa soo saaciday qof lugaynayo oo iska qabsanayo koox intuu iska soo dhaxgalo hadda isku qarxinayo kaligiis, inta aad ugu soo saaciday markii hore maysan jirin. marka waxa waaye xagga amniga waxaan dhihi karaa waa meelaha aad ugu liidatay 4 sano oo la soo dhaafay. runtii Soomaaliya oo ka mid ah meelaha aan amnigeeda la isku halleyn karin ayaa mararka qaar waxa yimaada inaan xog buuxda iyo raadraacba laga helin falkii dhaca. 14 Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee galaaftay nolosha Soomaali badan ayaa halkudheg madow iyo dharaar kale oo tiiraanyo xabaarsan ku noqday shacabka caasimadda, waxaana sidoo kale 1 Agoosto 2019 ay Muqdisho weysay maayirkeedii Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariisow, kaasoo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar oo ah goob si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda. waa kan Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka. qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar wuxuu ahaa qarax macnaha ugu weynaa ee soo mara taariikhda inta hal mar accident ah ee dad Soomaaliyeed ay ku dhamaadaan. marka waxay ahayd in dad lala xisaabtamo, dad loo xisaabiyo. macnaha see u dhacday waa inaan wax ka barano, laakiin waxa u muuqataa inaan wax laga baran ama aan cid loo xisaabin. marka waxaan leenahay intii dhimata Allah u naxariiso, intay dhibaataysan Allah caafiyo, laakiinse waa inaan wax ka barno oo dad mas'uuliyadaas ay qaadaan. runtii waxay la mid tahay nasiib darrooyinka dhacay aydan ka mid tahay weerarkaasi uu ku baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer Yariisow. waxa uu nasiib darro dhacday oo laakiinse aan ilaa iyo hadda guddigii la saaray aan dadka Soomaaliyeed ku soo warcelin ama mas'uuliyadda cid iska leeyahay ama meel loo saarin oo ay jeclaan lahaayeen inay maqlaan cid mas'uuliyadda ka ahayd iyo wixii laga qabtay inay maqlaan ay jeclaan lahaayeen, isaga iyo ehelkiisa bay jeclaan lahaayeen dadka Soomaaliyeedba. dhinaca kale, doorashooyinka dadban ee lagu wado inuu dalku galo oo uu muran badan xilligani ka taagan yahay, suurtagal ma tahay in qaab cadaalada ay ku dhacdo si nidaamkii qori isku dhiibka uu meelmar u noqdo? waa kan Professor Ibraahim Bursaliid oo ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo dhowaan Muqdisho ka dhacay. doorashooyinka dadban ee 2021 aniga rajo badan kama qabo, hal cabaarna waan soo daaray. rajo badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama hataa dal Afrikaana laga filo. laakiin haddaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qoraysu dhiibkii 4 sanaba mar uu qurux noogu dhaco, ciddii Ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyo barwaaqan ku jirna. qodobo dhowra oo la isku maandhaafsan yahay awgood, xilligan waxa uu madmadow badani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada dadban ay dhinacyada siyaasaddu ku ballameen, iyadoo aanay muuqan wax tanasula. waxaana hadal u jeediyey madaxweyne Farmaajo ka hor inta aanu talada dalka la wareegin, hogaamiyaha wanaagsan oo ku fasiray mid aan ku fara adeegin kursiga oo reeba dhaxal loo aayo. macnaha leadershipka iyo hogaanku waa saas, inaadan dhihin meeshaan waa inaan joogo, laakiin waa inaad ku talagasho oo aad diyaariso cidda soo socota, inaad u diyaariso wax wanaagsan oo lagaa dhaxlo. laakiin dadka hadda jooga iyo dadkii hore waxaad moodaa haddii aad mar soo fadhiisatay
wax kaa kicin kara male waa dhaqan xumo waxaan ma lihid ummad baa iska leh waa wareegto maanta adaa fadhin beri nin kalaa fadhin laakiin markaad fadhido waa inaad wax wanaagsan samayso oo lagaa dhexlo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii ugu horreysay uu saaxadda siyaasadda ku soo biiro waxaa ra-iisul wasaare bishii oktoobar 14-keedii sanadkii 2010 u magacaabay madaxweynihii xilligaasi shariif sheekh axmed waxaana bishii sebteembar sanadkii 2019 uu madaxweyne shariif sheegay in dowladdu ka hor istaagtay safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo eedeymaha kale ee dowladda dul hoganaya 4 sane ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ka mid a dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax gacanta loogu geliyey dowladda etoobiya oo baadigoob ugu jirtay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday hoyga uu muqdisho ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maanta oo ay tahay 8 Februari waxaa ku eg muddo xileedka madaxweynaha mucaaradkuna waxa ay ka digayaan waqti kororsi welina beesha caalamka oo Soomaaliya taageerta ayaa dhinacyada doorashada isku khilaafsan isku soo riixaysa kuna cadaadinaysa in la qabto doorasho wada ogol ah si dalku uga baaqsado midtaasi liddu ku ah lamana saadaalin karo xilliga ay arrintaasi suuragelayso waana mid hirgelinteeda haddii la isku ayido ay ka dhigan tahay tallaabo dimuqraadiyadeed oo horay u qaaday dal ay colaado daashadeen islamarkaana dunida u bidhaaminaysa muuqaal kale oo yididiilo leh xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho. haddaba xaaladda siyaasadeed ee cusub ee waddanku galay iyo mowqifka mucaaradka ayaan ka waraysanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington ayaa madaxweynihii hore qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay waxayna ugu horreyn weydiisay qiimeyntiisa muddaxileedka dowladda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. xilligii aniga aan hayay xilka iyo muddadan hadda 4 sano ee maanta ku dhammaatay ee madaxweyne Farmaajo uu xilka hayay qiimeynteeda dadka Soomaaliyeed ayaan u daynayaa oo aniga hadda inaan qiimeeyo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago maanta dalku wuxuu ku sugan yahay xaaladda maanta dalka jirtaa waxay tahay xaalad aanan la garanaynin oo annaga waay aragnimo iyo ogaal iyo khibrad aan u leenahay aanay jirin oo horay aan noo soo marin nala soo marin muddadii burbur ka dambaysay ee dowlad dhisida Soomaaliya lagu jiray mar xilligii oo xilka loo igmaday ee adaa dastuuriga uu dhammaaday kuwii bedelayana aanay joogin aanay soo muuqanin oo xataa aanay soo soconin oo aan la garanayn waqtiga imaanayaan in muddaday ku imaanayaan marka yacni xaalad aanan horey loo sahmin waxaa lagu yidhaahda afka qalaad unexplored territory waayo hadda aan ku sugannahay marka ma naqaano waxa biri dhacayo waxa biri daba dhici doono waxa bisha daba dhici doono ilaahay hadda ma ogin waana midda ugu xun oo ummadi ay ku sugnaato waaye aniga qiimeynteyda maanta xaaladda dalku waa sidaas qoraalaad soo saarteen xilli dambe ku aadan xaaladda dalka muxuu ahaa nuxurka qoraalkiinaas haddii aad tihiin musharaxiinta midowga musharaxiinta beraa laga hadli doona waxaa laga hadli doonaa maanta laga hadli doonaa oo mas-uuliyiintii ugu sarreysay iyo madaxda dhammaan ka hadli doono laakiin waxaan rabaa waxa ku jira waxay ahayday qoraalkaasi ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisii dhammaaday waqtigiisii inuu dhammaaday ha dhammaada ee dhib ma laha haddii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyey xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cakiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummadda dhammi hadda uu meel dhex ka laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u helaan inay soo dalka dhinac walba laga soo farageli karo oo ajnabi uu soo farageli karo oo argagixisadu ay soo farageli karto oo maxaan ku yidhahdaa kuwa dowladnimadu ay celisay oo dadka dhibi jiray ay dib usoo noolaan karaan oo ay soo farageli karaan oo maxaan ku yidhahdaa qabaa'ilku iyo wax lamida madaxweynahani dalka xilligiisii markuu dhammaado ku dhameeyey marka boorqadan waxay ahayd madaxweynaha xilligiisi waa dhammaaday maxaa bedelayo dalka ilaa meel cidlaa oo gabaahiira loogama kala tegayo
tala soo jeedin fikirka midowda murashaxiintu ay qabaan ayaan kusoo bandhignaa annaga oo aan leenahay xaaladan kala guurka ee dhibka badanne si ugu dhaqsiya badan looga baxo sidaa muxuu ahay haloo talada sidaa hala yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waktigan degdega ay ku jira. marka madaxweynuhu kulanka dhuusamareeb isaga iyo madaxda maamul goboleedyada waxay kusoo kala tageen iyagoo aan heshiis gaarin. hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo waxaa ka fudud in 17 September ama 17 September heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorasho la aado inta haddana guddi laga sii doodi lahaa? maya warqadan waa ku caddahay annagu sideenaba waxaan rabnaa heshiiskii 17 September in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub iyo ma ka fikirayno. doorasho inuu dalkan aado la isdoorto baarlamaanka la doorto madaxweynihii la doortaan rabnaa. heshiiskii muxuu ahaay September lasoo heshiiyey doorashadii dadbanayd si waktiga loo soo koobo daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo. bas guddigan golahan waxaan annaga aan usoo jeedinay caqabadaha hadda hakiyey oo heshiiskaasi oo ka socon waayey oo annagu aan u aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaan ku yidhaahdaay golahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaanaan rabnaaye hadda iyo dood cusub iyo muxuu ahay xeelad cusub midna ma ahan. maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne Farmaajo hadda kadib markii xilkiisa dhamaaday? madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2021 xilkiisii waa dhammaaday. mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intaba waqti ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma khalad la-ayn mana xumaan la-ayn laakiin waxaa la ilaalinaya dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo. laakiin xilligii haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixi lahay taladeed aanu haynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha. madaxweynuhu raalli oo ahaanaya muwaadin Soomaaliyeed waaye wixii maanta ka dambeeya muwaadiniinta Soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin tala maanta uu dalkii oo kusii hayo oo sharciyadeed ma laha. maxaa laga yeelayaa firaaq siyaasadeed oo adduunyada ay digniina ka bixiyaan wadamadana aanan u wanaagsanayn in ay galaan firaaq siyaasadeed oo dowladnimo la-aan ah? ma u wanaagsana. annagoo warqadayna bayaankayna haddaad afrisa Falastiinay aan soo saarnay firaaqa ayaan aad iyo aad uga taxadirnay. xukuumadda jirtaay inay jirto annaga problem kuma qabno. howlaha dowladnimada ee socdaa oo dhan inay socdaan problem kuma qabno. maxaan ku raha golayaasha jiraa inay sii jiraan problem. waxaan rabnaa bes boodhigan sida ugu dhaqsiyaha badan ee muddo kooban ah inuu doorashadii ku cayineeday doorashada dadbaneeda ku cayineeday heshiiskii 17 September lagu heshiiyey kusoo heshiiyeen muxuu ahaa dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladii federaalka ee baarlamaankuna u ansixiyey inay dhaqan geliyaan muddada ugu kooban ee suurtagalkaan rabnaa. firaaqna ma jiro inta muddadaas doorashada ay socotahay dalka nidaamkiisii iyo wixiisii shaqada caadiga ahaa inay dalka kala socotaan rabnaaye waa lagu kala tegay meeshuu meel gabaahiira waaye in la yidhaahdo ma rabo. kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in toddobaadyadii lasoo dhaafay aynu isku daynay in aynu waraysi ka helno madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo haatanna aynan weli ka helin jawaab. haddaba sida waraysigaasi aad ku maqasheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hogaamiyaasha mucaaradka ay sheegeen inaysan u aqoonsaneyn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kaleetana labada aqal ee baarlamaanka ayaa bishii Sebtembar ee sanadkii hore ansixiyay qaraar dhigaya in hay-adaha dastuuriga ah ee xilligan jira ay xilka sii haynayaan ilaa iyo inta laga soo doorto hay-adihii bedeli lahaa ayaga. haddaba sharcigu muxuu ka qabaa arrintaasi? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay hor dhigtay sharci yaqaan Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle oo degan Minnesota. Falastiin waad mahadsantahay adiga iyo dhegeystayaashaadu. dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweynaha Soomaaliya in la doorto muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinka xilka loo dhaariyo sida ku qoran qodobka 91 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. marka muddaxileedka madaxweynuhu waa 4 sano weeyi.
isla qodobka 87 faqradiisa labaad ee dastuurka ayaa waxay dhigaysaa madaxweynuhu dhammaan inuu xilkiisa u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. marka madaxweynaha sidiisaba 4 sano ayuu xilku kaga egyahay. marka dabcan dastuurku wuxuu markaa waajib kaga dhigayaa madaxweynaha oo ka mid a xilalka ama mas-uuliyadaha saaran inta uu xilka hayo inuu diyaariyo in doorasha dalka ka dhacdo oo uu shuruucdii loo baahnaa baarlamaanka loo gudbiyo, dhammaan adeegyadii loo baahnaa si loo suurtageliyo doorasho xor ah oo xalaal ah in uu fuliyo waajibaadkiisa dastuurigaa bay ka mid tahay. marka dastuurku wuxuu ka qabaa in 4 sano ay ku eg tahay. waxaa jira in baarlamanku uu meel mariyey xeer dhigaya in ay xilka sii hayaan ilaa laga soo dooranayo baarlamaan bedela. qodob ka mid ahna wuxuu dhigayay in sidoo kalena hay-adaha dastuuriga ay xilka sii haynayaan. sidee qodobkaas loo micneynayaa? waa qodob aada u fiican ayaa tilmaantay. madaxweynaha hadda haya xilka oo xilkiisu hadda uu ku ekaa bishaan maanta oo uu ku ekaa, waxaa la isweydiin karaa ma yahay madaxweyne sii hayn kara xilka mise ma aha. sida aad tilmaantay, baarlamaanku wuxuu meel mariyey xeer dhigaya in dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ilaa laga dhisayo kuwii bedeli lahaa ay sii hayn doonaan xilkooda. dabcan madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay hay-adaha dastuuriga ayaa uu ka mid yahay xafiiskiisu. marka ma jirayso in lagu magacaabo madaxweynihii hore. waxa uu ahaanayaa madaxweyne sii haynaya xilka iyadoo la fiirinayo qodobkaas iyo xeer hoosaadka ama xeerkaas uu meel mariyey baarlamaanku. waa dabcan muhiim in la ogaado in dal walba oo dhisan uu leeyahay hanaan dastuuri ah iyo habdhaqan sharci. waxaa ka mid a habdhaqanka dastuuriga ah in aanu soo bixin faraaq ama vacuum oo meel bannaan aan looga tegi karin howlaha qaranka. waa inay cid gacanta ku haysaa jirto sii socodsiinta howlaha iyo ilaa lala kala wareegaya xilka cid gacanta kusii haysa, oo xataa 1 daqiiqo aan loo ogolaan karin in ay soo bannaanaato xilka dowladda iyo adeegyada loo hayo dalka iyo shacabka. marka muhiim waxa weeye in la ogaado haddiiba ay dhacday fashal siyaasadeed oo keeni waayey in lasii diyaariyo doorashooyinkii loo ballansanaa, waxaa lagu qasban yahay oo ka mid a waajibaadka dastuuriga ee saaran madaxweynaha iyo baarlamaanka inay xilkooda sii hayaan, laakiin si dhaqsa ay ugu soo jeestaan diyaarinta doorasho dhaqso ah oo markaa xilka si sharciga loogula kala wareego. laakiin mar raba ma ogolaanayo dastuurku in dalka meel cidlaa looga dhaqaaqo ama looga tago cid aan la oqoonin ciddii gacanta ku haysaana inay sii hayso. waxaad moodaa xeerka baarlamaanku uu bishii Sebtembar soo saarayna in ujeedkiisu sidaas ahayd. qaran cabdiwaaxid, sidee la isku waafajinayaa xeerka baarlamanka ee dhigaya in baarlamanku uu xilka sii hayo inta baarlamankale lasoo dooranayo iyo dastuurka dalka oo muddaxileedka madaxweynaha 4 sano ku koobaya? ma sharciyo kale jira oo loo maro si la isku waafajiyo xeerka iyo dastuurka si aan isaga hor imaanaynin? sidee loo waafajinayaa arrinta baarlamaanka uu meel mariyey maadaama dastuurkana uu leeyahay 4 sano, qodobkan dambe baarlamanku uu meel mariyeyna uu leeyahay loogama tegi karo firaaq siyaasadeed, hay-aduhu waa ay sii shaqaynayaan. baarlamaanku sidiisa waa xeer dejiye, laakiin wuxuu ku qasban yahay xayndaabka dastuuriga ah oo dhammaan xeerarka baarlamaanku soo saaro waa in loo fiiriyo inay yihiin mawaafaqsan yihiin dastuurka mise way ka hor imaanayaan. sidaa awgeed waxaa muhiima in la tilmaamo ciddii arrintaa ka doodi lahayd ama challenge garayn lahayd waa inay hor tagto maxkamadda dastuuriga ah, oo maxkamadda dastuuriga ayaa sheegi karta ama kala saari karta xeerkan uu baarlamaanku soo saaray dhigaya in hay-adaha dastuuriga ay xilkooda sii haynayaan muwaafaqsan yahay dastuurka mise uu ka hor imaanaya. fasarka noocaasa ciddii fasiri lahayd ama interpretationka samayn lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd. maxkamadda dastuurigiina inooma dhisna maanta oo sidii dastuurka federaalka waafaqsan weli inooma dhisna, oo waxyaabaha run ahaantii laga gaabiyey muddo dheer kusoo ka hadlaynay oo xataa sharciyadeeda aan diyaarinay ayay ku jirta.
marka iswaafajintooda arrintaa iyo fasirideeda maxkamadii dastuuriga looga baahnaa. maxkamadii dastuurigii meesha kama jirto. marka haddii aanay jirin maxkamadii dastuuriga ahayd arrintana ay timaado maxaa dhacaya? dantu waxay qasbaysaa marka danta dastuurigii waxay qasbaysaa marka in madaxweyne farmaajo uu meesha sii joogo, baarlamaanku sii joogo, laakiin ay si dhaqsaa uga howlgalaan jadwal siyaasadeed oo doorashada lagu qabto. sidoo kale ay xukuumadda madaxweyne farmaajo ka waantowdo inay go-aano waaweyn qaadato muddadan hadda lagu jiro kala guurka ee la diyaarinayo doorashada. waayo sida dhaqanka dastuurigu yahay, marka madaxweynaha xilkiisu dhammaado ee uu sii haye yahay, sii haynta macnaheedu waxa weeye in adeegyadii asaasigii nolol maalmeedka ahaa ee maalin walba soo laalaabinaya ay sii wadaan, aanay samaynin go-aano waaweyn, kuna koobaan shaqadooda diyaarinta doorashadaasi ay ku koobaan. marka waddanku xaalad kala guura ayuu ku jiraa. nasiib darro weeye inay ku fashilmeen siyaasiyiintii iyo hay-adihii dastuuriga ay ku fashilmeen diyaarinta doorashadii. maxkamaddii dastuurigiina meeshii aanay jirin, dastuurkii weli uu qabiye yahay. marka laakiin xeerkaas baarlamaanku soo saaray, anigu waxaan qabaa inuu yahay xeer dantu ku jirto hadda oo xaaladan looga gudbi karo, oo macnaheedu tahay in ay sii hayaan qolada hadda xilka haysa madaxweyne farmaajo iyo fulintii hay-adaha kale fulintu iyo baarlamaanku ay sidooda usii jiraan ilaa laga helayo cid bedesha. laakiin aanay noqon wax open end oo iska furan aanay noqonin, ee si dhaqsaa jadwal loo sameeyo. kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid cismaan qalinle oo degan Minnesota una warramaya Falastiin Axmed Iimaan. haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya maxamed colaad xasan. kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o da ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka tallaalka xanuunka covid-19 iyo cabsida ku salaysan been abuurka ee laga baahiyey ee keentay in dad badan ay ka baqaan inay tallaalka qaataan. xanuunka coronavirus ayaa tan iyo markii uu dunidu ka dilaacay gaar ahaan magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii December sanadkii 2019 waxa uu galaaftay nolosha in ka badan 2 milyan iyo bar qof, waxaana kiisaska dadka laga helay xanuunka ay gaareen in ka badan 100 milyan oo qof. sanadkii la soo dhaafay bilowgii markii uu xanuunka ku fiday dunida, waxay dunidu gashay walaac. waxaa istaagay wax walba oo ku xiriiray noloshii caadiga ahayd. waxaa bilowday baqdin xoog leh iyo werwer laga qabo xanuunka dilaacay oo aan dawo loo hayn markaa. waxaa khubarada sayniska iyo shirkadaha dawada soo saara ay isku howlayeen sidii loo heli lahaa tallaal looga hortago xanuunka. riyadaasi oo rumowday bishii November ee sanadkii tegey markii shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay ku dhawaaqeen inay sameeyeen tallaal badqabkiisu yahay in ka badan 90%. bahda caafimaadka ee ka howlgelaya cusbitaalada, bukaanka la circiirayey iyo shucuubta guud ahaan dunida waxaa u soo iftiimay rajo. hase yeeshee nimco weliba nusqaan leh, rajadaasi waxaa shaki iyo mugdi ku dahaaray dad badan oo adeegsanaya baraha bulshada oo faafiyey warar been abuura oo aan cilmiyaysnayn oo laga faafiyey in tallaalka aan la aamini karin oo uu waxyeello u leeyahay aadanaha. Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale waa madaxii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ku nool yahay gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalida ugu badani Maraykanka degan tahay. waxaan weydiiyey cabsida laga qabo tallaalka. ana hadda communityga Soomaalida oo Columbus oo degan dad badan waa arkay oo ka soo horjeedo, dad badan oo ka cabsanaya waa arkay. dhibka jirana maxaa waaye dadka wacyigelin badan u baahan yihiin. dad badan oo communityga ku dhacay uuna ku sii socdaa. marka tallaalkana maxay la mid tahay wacyigelintii la mid tahay. marka maxay u baahan tahay in dadaal badan dadka loo galo, la fahamsiiyo farqiga u dhexeeyo tallaalka iyo daawada. bal haddaad ku yara istaagna halka dadka waxay ka baqayaan tallaalka, waxa looga baqaya maxay yihiin? ma khuraafaad internetka lagu faafiyaa? ma iyagiiba xog fiican ka haysan oo baqaya? maxaa laga baqayaa? tallaalka iyo daawadan kale sax waay, labadoodaba waxaa laga soo saaray sheebaara laga soo saaray, warshadaha soo saareen. marka saa ula socotid adiga daawada inta badan
loo qaato haddii infection qof ku dhaco ama daawada sokorta ama dhiigkarka mar kastaba maxay leedahay qayb dhinacna faa'iiday leedahay dhinacna khasaaray leedahay marka dadkii barbardhigaasi samaynayaan vaccine-kii marka maxay iska dhaadhiciyeen inuu khasaaradiisa badan tahay wax sun inay lagugu duraa inay tahay inuu dhib weyn ku keeni karo inuu qofku u dhimi karo taasna maxaa waaye wax oo dadkii ma fahamsano farqiga u dhexeeyo daawada caadiga ah oo haddii qofku markuu xanuunsado la siiyo iyo talaalka bal faraqaas haddaad noo sharaxdo si fudud haddaan u sharxo talaalka waa ka faa'iido badan yahay daawada sababtana maxaa waaye talaalka waxaa loogu talagalay in hortag la sameeyo daawadana maxaa waaye markaas dhibkii markaas jiro la daaweeyo saas daraaddeed maxaa la yidhi talaalka oo dhan adduunka dhan inta talaal lasoo saaray waa daawo laakiin daawada ma noqon karto daawo haddii loo baahneen for example oo kale haddii qofka uu daawada sokorta ama dhiigkarka ama daawada infectionka lagu daaweeyo antibodiska la dhaho haddii qofkii uu isagoo u baahnayn hadduu qaato sunu isku beddelaysaa maxaa laga yaabaa inuu dhinto laakiin talaalka waxaa loogu talagalay qof oo caafimaad qabo in la siiyo sida uu jirkiisa markuu talaalkaas jirka bani aadamka muxuu leeyahay difaac uu leeyahay difaacaas ayaa la rabaa in la baro cudurka wuxuu yahay kabacdina jirkaas inuu difaacaas uu is adkeeyo uu fahmo cudurka wuxuu yahay kabacdina uu ka hortago waxaa laga sameeyey inta badan maxaa waaye ama jeermiskii oo la dilay ama maxaa la dhahaa qayb ka mid ah waxaa loogu talagalana maxaa waaye jirka bini aadanka sida wadamada ay leeyihiin askar oo difaacdo jirka muxuu leeyahay qayb ka mid ah oo difaac loogu talagalay qaybtaas aa la rabaa in la baro saas daraaddeed faa'iido maahane khasaaro dhan ma jiro khasaarada ugu weyn oo talaalka laga heli karo maxaa waaye inuu talaalkii shaqayn waayo oo faa'iidadii laga rabay inuu helo khasaarada kale ama dhibka kale uu talaalka keeni karo sida daawada oo kale sida cuntada cunno maxaa waaye waa xasaasiyada ama haddii la dhaho allergic saa ula socotay dad maxaa jira haddii ukunta cunaan oo kale jirkii uu allergic dhacayo dhib nafta yani khatar gelinayso saas daraaddeed daawadiina waa allergigay leedahay talaalkana allergiguu leeyahay doctor maxamed ceydiid hure oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada shivil ee dalka ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa u sahlaya qolyaha talaalka ka soo horjeeda inay dad badan geliyaan shakiga la xidhiidha talaalka waxyaabaha keenaya in maxaa la yahdaa dad badan oo soomaaliya ay ka shakiyaan talaalkan oo aanay qaadanin waxaa ka mid ah had iyo goor soomaalidu waa dad afka wax isugu gudbiya marka waxaa jira hadallo badan ama waxyaabo badan oo laga faafiyey talaalkan iyo laleeyahay cudurro laydinku talaalaya ama waxyaabo ujeeda kalea laga leeyahay ama viruska laftiisaba cid gaara ka dambeysa oo waxyaabaha hadallo noocaasa ku tiri kuteena dad badan oo rumaysanaya baa jira waxaa kaloo jirta dee dadka kale aan soomaalida ahayn badankeeda dad badan oo ka shakisan waxaa kaloo jira iyaga dadka qaar laftooda soomaalida ah in maxaa la yahdaa ay jiraan dad badan oo dee aqoon laho wax akhriya oo research sameynaya oo arkaya macluumaadyada laga qoray maxaa la yahdaa tallaaladan inaanu tallaalkani xilligii loo baahnaa qaadan oo ah inuu tallaalkani maaragtay muddo yaroo kooban kusoo baxay tallaalkan inaan macluumaad fara badan laftiisa laga haynin in waxyeelo ay ka soo baxeen tallaalada qaar oo dad dhintay la sheegayo ama dad ku xanuunsaday waxyaabahaas iyo kuwo kale oo fara badan baa jira ugu wacan inay dad badani diidaan runtii inay tallaalkan qaataan doctor maxamed aadan cali waxa uu ka tirsan yahay howlwadeennada caafimaadka ee deegaanka king county ee magaalada seattle ee gobolka washington gobolkaasi waxa uu ahaa meeshii ugu soo horreysay oo kiis xanuunka covid-19 laga helo maraykanka waxaa kaloo badanaa dadkii ugu horreeyey ee ka qayb qaatay tijaabada tallaalka covid ay ka soo jeedeen gobolka caqabadaha ugu horreeya waa kuwa logistic ah kow productionkii oo aan maxaa la dhihi jiray aan sidii loo baahnaa ahayn dalabka ayaa ka badan sablayga waxa loo hayana waa wax ilaa iyo 50 milyan oo doos ah waa gartay caqabada kale aadka loo hadalhaya waxaa ka mid a xitaa markii wixii lasoo saaro oo meelihii la geeyo dadkii sidii loogu qanci lahaa inay qaataan oo khuraafaad iyo waxyaaba aan jirin iyo been abuur badan laga sameeyey tallaalka oo baraha bulshada iyo lala dhex wareegayo oo shaki badan abuuray caqabada waa jirta waa caqabada ugu ballaaran runtii markii wax kasta lasoo diyaariyey in dad ka soo horjeeda tallaalada oo anti-vaxxers loo yaqaano
dad noocaas oo kaleo awood leh baa waxay sameeyeen in social mediaha ay warar aan jirin ay ku abuureen, taasoo keentay in dad badan oo dadkeena qaar ay ka mid yihiin dadka masaakiinta immigrantiga iyo dadka luqadaha kale ku hadla ay run moodeen. marka arrintaasi waa arrin runtii waa been faaftay oo sida loo daba qabtaabay adag tahay, laakiin waa lagu daba jiraa. waxyaalaha kale oo runtii laisla dhex marayo oo dadkayga qaarkood ay aamineen ama ay sheegayaan waxaa ka mid ah ama social media ka yimid in vacciinkan uu wato wax loo yaqaano microchip oo dadku uu dabagelayo, tracking uu ku samaynayo oo uu dadka maskaxda wax ka yeelayo. arrintaasi wax kama jiraan. dadka qaarkood waxay leeyihiin DNA-da ayuu maadaama messenger RNA buu ka samaysan yahay la yidhi, iyana waxay leeyihiin DNA-da armuu maxaa la dhihi jiray wax ka bedela. arrintaasina wax kama jiraan. waxaa kaloo leeyihiin qaarkood in maxaan ku rahdaa amuu keenaa madhalaysnimo amuu keenaa. arrintaasina wax kama jiraan. marka waxyaabo badan oo social mediaha iyo dadku ay soo dhex wareegayaan oo kuwaas ay ka mid yihiin baa jira oona u baahan in dadkeenna laga wacyigeliyo, aqoontooda la dhiso si maxaan ku rahdaa uga faa'iidaystaan fursaddan. doctor liibaan cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden. waxa uu isna ka warramayaa cabsida dadku ay ka qabaan talaalka. aad iyo aad salaam diiran dabadeed anoo oon balyanaya dhammaan aan bogaadinaya baaweynta ku xiran iyo shaqaalaha VOA-da. mahadsanid su-aashan waa su-aal muhiima. cabsi weyn baa jirta oo ku salaysan dhinaca talaalka. Soomaali badan iyo even xataa dadka native-ka oo Sweden degan, cabsidana saldhigeeduna waxay tahay aqoon xumo. markii wixii aqoon aadan u lahaynna waa laga cabsadaa. marka waxaa hadda bilaabatay wacyigelin oo guud iyo mid specific ah oo khusaysa dadka ajaanibta khaasatan Soomaalida. marka la qaato talaalkan dadka qofka lagu duro maxaa side effect ama kusoo noqon kara qofka uu dareemi karaa haddii bay dhacdo? guud ahaan sida hadda dhammaan talaalada shirkadaha kala duwan ay sameeyeen oo hadda caanka ah oo la qaatay taya ahaan, dhaqaale ahaan iyo productionkoodaba waxaa soo baxday dad qofka markii talaalka uu ka qaato garabka, muruqa, in uu 24 saac ugu horeyso in ama ka damba xataa inuu dareemo daal, inuu qofka ku dhici karo ama uu dareemi karo daal, madax xanuun inuu dareemi karo, sidoo kale jir xanuun khaasatan muruqa laga siiya cirbadda uu ka qaato qofka inuu ka dareemi karo xanuun. dadka qaarna meesha laga duro inay xoogaa yaro barar ay arkaan. marka way jirtaa, dad badanna waa lagu arkay, waana isku arkeen, laakiin saacado kadib waa wax ay ka gudbeen oo laga wada kacay. haddana wadankan haddaan joogna ilaa 300,000 qof ay hadda marayaan dadka ugu horreeya faceka ugu horreeyo oo dooskii one qaatay, dooskii koowaad. doostuuna ilaa 40,000 hadda kor u dhaafeen. marka numberku wuu socdaa, kor u socdaa. numberkaasna waxaa jira dad isku arka calaamadahaas. inkastoo ay jiraan dad badan oo ka baqaya talaalka, haddana waxaa jira Soomaali badan oo ku nool qurbaha Maraykanka iyo Yurub oo qaatay talaalka. Xanaan Shidane oo ah gabar wariye ah kana mid ah bahda caafimaadka ee magaalada London ayaa ka mid noqotay dadkii nasiibka u helay in talaalka ay qaataan. barnaamijka elayska VOA-da ayaa weydiiyey waxa ay dareentay qaadashada talaalka kadib. aniga xanaan ahaan horta cirbadaas waa qaatay, waxaana kasoo wareegatay xilligii aan qaatay 2 asbuuc. wax gooniya oo isbedelahoon dareemayna ma jiraan ama ugu soo kordhay xilligii aan qaatay ilaa hadda. marka cirbadda ugu horreysay ayaan qaatay, tii labaad ayaan sugahayaa insha allah. talaalkan ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxaa qaatay dad magac ku leh dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. waxaa kaloo dadka toddobaadkii hore qaatay ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. isagoo wariyaasha la hadlayey mar uu talaalka ka qaadanayay xarun ku taalla magaalada New York ayuu Guterres yidhi: My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist and be vaccinated as soon as they can. aragtidaydu waxa ay tahay in dhammaan dadku ay ka faa'iidaystaan fursaddan jirta, ayna istallaalaan wakhtiga ugu dhaqsiyaha badan ee ay heli karaan. aniga haddaa la i tallaalay, waxaanan carabka ku adkaynayaa faa'iidada uu leeyahay tallaalka aadanaha oo ay tahay in qof walba meel kasta ha joogee uu helo.
caqabad kale oo soo baxday oo barbar socota tallaalka ayaa ah sidii wadamada fuqarada ah sida Soomaaliya oo kale ay u heli lahaayeen tallaal. Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa toddobaadkii hore sheegay in Soomaaliya ay heli doonto tallaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February. Laakiin waxa su'aali ay ka taagan tahay sida dalalka hodanka ah ay ugu dadaalayaan in tallaalka marka hore ay helaan dadkooda oo cadadka warshaduhu ay soo saaraan ay iyagu iibsadaan. taana ay keeni karto inuu aad uga soo daaho wadamada saboolka ah. Toddobaadkii hore waxaa arrintaasi qayladhaan ka muujiyey madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Dr. Tedros Adhanom. If we hoard vaccines and if we're not sharing, there will be three major problems. One, I said it, there will be a catastrophic moral failure. And two, it keeps the pandemic burning. And three, very slow economic global. Haddii aan tallaalka ku dhegno oo aanan wadaagin, 3 dhibaato oo waaweyn ayaa ka dhalanaya. Midda koowaad waa inay arrintaasi noqonayso musiibo iyo guuldarro xagga damiirka. Midda labaadna waxa ay keenaysaa in cudurkani uu sii jiro. Midda saddexaadna waxa uu sii xoojinayaa gabaabsiga soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waxaan marka u baahannahay inaannu iscaawinno, waayo waa midnimo iyo inagoo gacmaha isqabsanna sida keliya ee aan uga adkaan karno COVID-19 ugana guulaysan karno dhaqanka ah wax walba aniga ku horeynaya. It's only through solidarity and unity that we can defeat this pandemic. It's not through me first attitude. Dhaqaatiirta iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka Ilayska ayaa talo u soo jeediyey Soomaalida. Waxaa ku horeynaya Dr. Maxamed Aadan Cali. badanaaba waxay dadkeenu aad uga welwelaan waxay tahay side effect wax loo yaqaano. Tallaalkan haddaan qaato armuu igu keena sidan, arma ii dhaantaa inuu igu dhaco cudurka oo waxyaalo noocaas oo kale oo cabsi ah. Anigu waxaan aad ugu talinayaa qof kasta Soomaali oo dhageysta arrintan inuu ka faa'iideysto fursadan marka ay diyaar u noqoto. Iyadaaba la hubin inay diyaar ku noqonayso. Maxaa yeelay waxa kan waa wax qaali ah oo runtii ay dhici karayso in dadka cad iyagu ay badsadaan oo dadkii kale xaq u lahaa arrintaas equity-gan aad ugu dadaalnaa. Marka dadkeeno fursadan hadday ku soo marto ka faa'iideyso ayaan ku leeyahay. Dr. Shaafici ayaa isna taladan haya. Hadda cudurkan u jeedid coronavirus numberka u dambeeyay la sheegayo ilaa hadda maxaa gaaray 100 milyan qof ah ku dhacday adduunka oo dhan. Waa number aad u weyn, saas daraadeed khatarteedana u jeedin. Marka aniga taladeeda maxaa waaye aan mar kastaba u sheegayo ka hortagga mar kastaba ka khayr badan daaweynta. Ka hortaggana hadda waa la diyaariyey qof kastaba inuu asaga naftiisa uu ku bilaabo ka hortag. Hadduu asaga naftiisa uu ka hortaga uu daawada talaalkii qaato asagana wuu ka badbaadayaa cudurkii inuu sii faafay inuu ka badbaadayaa. Dhibka jira maxaa waaye hadduu qofkii iska dhaadhiciyo inuu asaga caafimaad qabo oo jirkiisa difaaciisa xoog badan yahay uu dhaho aniga muu baahni khasaaradiisaa badan faa'iidadiisa aniga ma rabi, waxaa laga yaabaa inuu viruskii markuu ku dhaco inuu gaarsiiyo dad oo bulshada oo ka mid ah oo weliba qaraabadiisa hoose ama saaxiibayaashiisa oo markaas cudurrada kale oo la socdaan qabaan haddii sokor ama dhiikar ay qabaan kabacdin inuu dhinto. Marka inuu naftiisa badbaadiyo communitygana iyo dadka la joogo inuu badbaadiyo waa waajib oo asagaas naftiisa saaran. Marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba waa inay rasuul sallallahu alayhi wasallam xitaa muxuu yidhi alwaqaaya khayru min alcilaaj. Ka hortagga mar kastaba maxay ka khayr badan tahay daaweynta. Waa kan isna Dr. Liibaan Cumar. waxaan kula talin lahaa absolutely waa waajib qofka bini'aadamka ka saaran inuu naftiisa dabiibo. waa qayb ka mida jihaadka. cudurkan ama viruskan coronavirus waa khatar dadka risk groupka u ah. waa aad u muhiim ugu yahay tallaalkan inay qaataan si uu uga hortago jirkoona difaaciisuna u ogaado viruskan si uu u dilo ugana hortago. haddana meesha waxaa ku jirta faafidda inuusan faafin si loo xakameeyo. marka qayb weyn uu ka yahay badbaadinta nafta qofka iyo dadka kaleba aad iyo aad u muhiim u yahay. sidoo kale waxaa tala u haya Soomaalida qurbaha Xanaan Shidane. taariikhda Soomaalida aad ay ugu badan tahay waddankan Ingiriiska. si haddii loo fiiriyana dadka waxaan ka mid nahay cudurku aadka uu actually u haleelay ama dadka u nugul ayaan ka mid noqonnay. laakiin tala ahaan anigu waxaan talo actually dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed inay taxadaraan. waxaan kaloo oran lahaa haddii ay helaan jaaniska cirbadda actually loo sugu durayo ama lagu talaalkan hadday helaan jaanis
waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliya inay qaataan meelaha xarumaha caafimaadka waxaa jooga dhakhtarkoodii oo ay actually weydiin karaan wax badan inay ka ogaadaan cirbadan waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay u keeni karto sidoo kale dad badan waxaa jira Soomaaliya oo la shaqeeya xarumaha caafimaadka la shaqeeya oo iyaguna u turjumi kara oo Soomaaliya kugu deeqsin kara waxa ay tahay cirbadan ama waxa aad kala kulmi karto dadaalku markasta meesha kama maqna qof kasta inuu dadaalo oo naftiisa iyo nafaha la nool inuu ku dadaalo waa muhiim meesha ku jirta Soomaalidana waxaan actually ognahay in aan dad badan oo isku yimaado oo isjecelo isoo laxawsada aan nahay laakiin laxawgeennii iyo iskumaanshaheennii badnaana uu dhibaato gooniya noo keenay xilligan lagu jiro koronahan iyo dhibaatadiisa sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka iyo khubarada sayniska ee soo saara tallaalada tallaalku waxa uu ka caawiyaa jirka bani'aadamka la dagaalanka ama ka hortagga caabuq ku dhaca mustaqbalka tusaale ahaan tallaalka covid-19 marka aad qaadato qiyaas daweedka labaad waxa uu jirkaagu siinaya difaac dhammaystiran waxaana dhakhaatiirtii barnaamijka ilayska aan ku casuunay ay ku midaysnaayeen inay wanaagsan tahay in tallaalka la qaato oo uu bad qabo intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay tallaalka covid-19 iyo been abuurka baraha bulshada ee laga baahiyey intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabaya waddanka maraykanka habeenkii xalay ahaa goor dambe waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka suber boolka ee lagu soo afmeero tartanka ciyaaraha NFL-ka ee waddanka maraykanka laga ciyaaro waxaana isugu soo baxay kooxaha Tampa Bay Buccaneers iyo Kansas City Chiefs labadan kooxood ayaa kala ahaa koox iyadu koobka difaacanaysay oo Kansas ah iyo Tampa Bay Buccaneers oo iska daa in ay koobkan iyo meel u dhow timaadeen xilli ciyaareedkii kan ka horreeyay xataa u soo gudbi weysay ciyaaraha israaraabka hase ahaatee xilli ciyaareedkan waxay kaga duwaneed waxaa kooxda banuuni qaybiye uu ahaa oo ku soo biiray xilli ciyaareedkan Tom Brady oo ah ciyaaryahanka kubadda qaybiye waddanka maraykanka kan ugu kabo ka badan waxaana taa ay muujinaysay in uu isbeddel weyna ku yimid kooxda Tampa Bay Buccaneers inkastoo xidiga isaga hore ula ciyaari jiray ay kooxda kula soo biireen waxay ciyaartii xalay ku soo gabagabowday 31 dhibcood oo ay guushu ku raacday kooxda Tampa Bay Buccaneers waxaana 9 dhibcood keensatay kooxda Kansas City Chiefs Tom Brady ayaa u muuqday xidig garoonka gacanta ku haya oo ciyaarta kontroolay halka Mahomes wiilka kubadda u qaybiyay kooxda Kansas City Chiefs uu kooxdiisii dhaqaajin kari waayay isla markaasina difaaca kooxda Tampa Bay Buccaneers ay dhulka si xun ugu rafiyeen isla markaasina ay ku qasbeen inuu qaato go'aano degdeg ah oo kubadda aanu meelo wanaagsan dhigin sidoo kale intii ciyaartu ay socotay laftiisa difaaca Tampa Bay Buccaneers dhaawac ayay gaarsiiyeen si kastoo ay tahaba kooxdii koobka difaacanaysa waa laga guulaystay Tom Brady waxa uu noqday xidigii garoonka oo ciyaarta markii soo gabagabowday waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP sidoo kale waxa uu noqday quarterback-gii ugu horreeyey ee ku guulaysta 7 koob oo Super Bowl sidoo kale waxa uu ka koobo badan yahay kooxdii uu hore uga ciyaari jiray ee New England Patriots oo isagu 6 koob horey ugu soo qaaday Mahomes oo ciyaarta kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Tampa Bay Buccaneers ay u qalantay inay koobkan ku guulaysato isla markaasina difaaca kooxdu ay u diiday isaga in uu kubad wanaagsan u qaybiyo ciyaartoydiisa weerarka si kastoo ay tahaba kooxda Tampa Bay Buccaneers ayaa dhigtay taariikhdii ugu horeysay ee ciyaaraha NFL-ka ee waddanka Mareykanka waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee ciyaarta Super Bowl-ka ah gurigeeda iyadoo lagu qabanayo kama dambaysta soo gaarta isla markaasina koobka ku guulaysata dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan kulan dambe waa mascad oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabad.
mahadsanid maxamuud mascade. balse marka hore kusoo dhowaada mar kale iyo warkii dunida iyo jacfar kukaay. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo hogaanka qaranka soomaaliya in ay degdeg u xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqay hogaamiyeyaasha soomaalida in ay dhinac iska dhigaan wixii baadigoob ee ku saabsan faa'iido siyaasadeed ee khaasa, taas beddelkeedana ay ka shaqeeyaan waxa ay ku jirto danta dadka soomaalida. waxay sheegtay safaaraddu in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegay uu dhaliyey horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadidda horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guulaystay wejiga koowaad ee deyn cafinta, iyo in si wax ku oola wax looga qabto amni darrida cuntada iyo musiibooyinka halista gelinaya soomaali badan. dhinaca kale saaxiibada beesha caalamka ayaa iyaguna sidaasoo kale ugu baaqay madaxda soomaalida inay sii wadaan wadahadalada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyin iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. idaacaddii galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas